abwaan cumar ismaaciil cali cumar cawliye ahna gudoomiyaha kooxda walaalaha fanka magaalada Burco kana mid ah abwaanada wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa tixmaansa ka tiriyay isbeddelka siyaasadeed ee adduunka waxaanu fariin la wadaagay shacbi weynaha Soomaaliland banakan abwaanka oo tixdiisa si maansada sidan ku cabiray bismillahir rahmaanir rahiim anigoo abwaan cumar ismaaciil cali cumar cawliye gudoomiyaha kooxda walaalaha togdheer Burco ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka dowladda Soomaaliland halkan waxaan ku qabanayaa maanso abtirsiinta adduunka la yiraahdo oo aan Soomaaliland ummadeedana kula hadlayo maansadu waxay ka bilaabmaysaa adduunkaynu joogniyo afartiisa geesood aadmiga ku kala nool aabbe iyo hooyiyo aadan iyo xaawiyo wax dhalee ugu qura abaar iyo colaad iyo aqoon iyo dhul kororsiyo abtirsiinta dheer baa ina kala fogeysay inaga iyo adduunyada afarteeda geesood aadmiga ku kala nool ilmaadeer bataan soo dhaafinta arle iyo xuduud iyo astaan dawladeed iyo afna kala lahaanay dawladaha adduunka iyo intan jaarka wadaagna waan aqoonsanahay inagu Soomaaliland ingiriisna dhageyso adaa qaybshay adduunka adaa jeexay xuduudda afrikaad kala oo Soomaaliland arladeedu intii ay ku ekayd aduun baa garanayo ogaal baa tahay weyn haddii aan ku ag joogni haddii aan iman weyno aduun baa ka masuulo ogaal baa tahay weyn ciddan soo ambanaysa ingiriis wuxuu sheeg soo dhaafinta ujeedada hoose gaad ingiriis wuxuu sheeg ab iyo sinji iyo ingiriis wuxuu sheeg kuwan sheegta igaad iyo afrikaanka midoobay iyana waawash adduunku ku shiraaya kuwan sheegta igaad iyo afrikaanka midoobay adduunku ku shiraaya iyana waawashka toonayo ergadii markii gaadhay aqalkay ku jireen baa albaabkii ka xidheen iridii furu waayay iskarna waaba la taagay intaan afka duulin bay odayaasha shireeno kuwana aan arkayno uma baahnin wallaahi ina saara diyaarad bay arrinkii ku dhamaaday Ameerika ka degeen dawladdii u adkeyd adduunkan maanta la joogo kuwa sheegta awoodda iyo Ameerika ka degeen xitaa waa Ingiriiska airportka dhexdiisii safiirkii inaga inoo joogay halkaas iyo wafdi uu u diyaarshay wufuudda imanaysa hadda waa annagii wufuudda imanaysaba isla booblay salaanta astaantii qarankoodii iyo astaantii qarankeenu baabuur ay ka lushaan baa nala saaray adeer halkaasaan iska raacnay adduunkan maanta la joogo kuwa sheegta awoodda dawladdii u adkayd ilaahay ka sokow aqal looga tasho oo odayaal fadhiyeen bay afka nooga gesheen hadda waa annagii afka nooga geshay rag aqoon badanoo jaaniska alla siiyey ilduuf looga baqaynayo aadna soo mari mayso oo afafkooda taqaana way ku afuufe wixii uurka najiifay arrinkii la garaysay innaga iyo Taiwan isu hoolayna goobta iskaashi aan la wadaagno iyo aqoonsina waa nala siiyey albaabkan ka bood waa innaga iyo Taiwan ab iyo sinji iyo fac iyo af iyo dhaqan koomid iyo islaamnimo muuminiin ummad yahay Soomaaliland intay abtirsiin galeen dhamaan ku arooraya ilduufku mar buu dhacaa afar badan kula helaa irmaan dawdaba guraa ujeeda ahaan dad yahow markuu Ingiriiska tagay ayaynu ambanno haddana ifkaba maybaynu nim allana waa nala ogaa ammaantaan leenahay ammaanka dhulkeenu yahay allay mahadiisa dadkii aasaasayo inaydun ilaashataan adeeg kugu waajibta soo dhaaf iyana ummadda Soomaaliland wuxuu awrku ugu kacay odayga dhaqan guurtidiya aqoonyahankooda iyo siyaasiga aaminka afkaar la wadaaga iyo ujeeddo midaysan iyo iskaashiga leeyihiin adeegaha daacadda adduun way isdaba socdaa ayaanba nin baa tasho adeec buu ka rabaa imaamka masaajidkiyo aabiyo hooyo kaliyo waliyul amrigaaga maqal ilaahay baa ku faray
idinku kaa doorataan axsaabta ka soo dhex baxaa ha oofsho axadgu galay af iyo uur kala shaqeeyo ammaanaha kaa helaan ha oofsho axadgu galay indhaha faraha uga daaya aabaha somalilan soo dhaaf iyana ummaddan somalilan ilaa nebi aadan iyo intii ka dambaysay baan innagoo laba dowladooda asxaabtii haajirtadan etoobiya jaar ahayn jacaylaagteennii ab xumo oodaa ka dhow ummadda somalilan ayaantay ugu darayd adduunku maqraati yahay intii ku badbaaday iyo abaalkay noo galeen miyaynu ilaaweynaa uliya diir baynu miyaynu ilaaweynaa taariikhda iftiimisay ammaanka dhulkooda iyo isteedkana soo xidhana ab baanu wadaagaynaa ammaanka dhulkooda iyo haddaanu keenuba adkaan ilaaladu wada shaqayn ilbuu cadow kaa helaa iskaashigu waa muhiim intaynu la jaarnahiyo etoobiya iyo somalilan soo dhaafiyana ummadda somalilan ummad yahay somalilan astaanta dalkeennu waa adhi iyo geel iyo looday adduunyadu inoo tiqiin dhulkii oo laga ootay iyo abaar baa haysato afkay wax la laayihiin intaynaan wada idlaan isheenna dhaqaale waa awrkiiyo dibigiiyo wankiiyo orgigeennan dhoofo iibkiiyo tarantoodii iyo itaalkoodii yaraa in loo hiishay rabaan intay goorgoortee wuxuu arrin taagan yahay nimcada inoo aasan iyo batroolka inaan qodnoon ayaama ku taajirree agabka iyo kambaniyada inoo soo saarayana inaydun ilaashataan aday kugu waajibteen inaynu ilaaliniyo ammaanku danteenna yahay intaas ku dhammaan isla dhinaca soo jeedinta isku habeynta soo diyaarinta waa aniga waxay durus rooray akhyaare waxaan leeyahay rabadaan kariim rabadaan mubaarak meel kastood iga daalacanaysan